arooriyo bandaawadayaal haddii aad Soomaaliya ku sugantahay waxay ku tahay xilli aroor ah haddii aad joogto wadamada caalamkana waxa laga yaabaa inay ku tahay xilli kale waqti walbo ay ku tahay wanaagsan ayaan ku leenahay maxaa soo kordhay aroornimadkan maxaa ku dhaafay xalay intii aad hurdaysay waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo xogo iyo macluumaad degdeg ah oo soo kordhay saacadii la soo dhaafay qodobada xasaasiga ah ee wararkeena aad ku daawan doontaan aroornimadkan waxa qayb ka noqonaya ciidankii weerari lahaa General Sani Cabdulle iyo Xildhibaan Jacfar oo la diyaariyay iyo xiisado culus oo saaka ka taagan Gubadley iyo Dayniile waxaan kula wadaagi doonaa ciidamada Xildhibaan Jacfar iyo ciidamada Sani Cabdulle oo xilligan heegan ka kala galay degmooyinka Dayniile iyo sidoo kale Gubadley iyo dhaqdhaqaaqyo culus oo halkaasi ka soconaya yaa bixiyay amarka raggan la doonayo in xabsiga lagu dhigo ee lagu weeraro kadib markii ay ka hor yimaadeen fikirka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan kula wadaagi doonaa xogo iyo macluumaad faahfaahsan oo laga qariyo oo arintaasi la xiriira qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo annaguna aan idiin soo gudbin doono waxaa qayb ka noqonaya horjoogayaal caan ka dhex ah kooxda shabaab oo gacanta lagu dhigay kadib ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dagaal culus la galay maleeshiyaad ka tirsan kooxda shabaab oo ku sugnaa gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan ku soo gudbin doonaa dagaalka dhacay ragga gacanta lagu dhigay tira ahaan inta ay gaarayaan dhaqdhaqaaqyada culus ee soconaya maxaa ka jira in saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda in dhaawacyo culus ay ka soo gaareen dagaaladii ka dhacay iyo duqeymihii saacadii la soo dhaafay gobolka Shabeellaha Dhexe xog iyo macluumaad dhameystiran oo arintaas la xiriira ayaan ku soo gudbin doonaa qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo annaguna aan idin la wadaagi doono waxaa qayb ka noqonaya ciidamo hubaysan oo ku hayb ah xildhibaan Sambaloolshe oo ka soo baxay furmaha dagaalka iyo Sambaloolshe oo abaabul dagaal oo ka dhan ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka bilaabay magaalada Muqdisho waxaan kula wadaagi doonaa ciidanka beesha xawaadle ee doonaya in ay soo galaan magaalada Muqdisho Sambaloolshe oo xilligan qayb ka noqonaya mucaaradka kuwooda ugu tunka weyn iyo dhaqdhaqaaqyo culus oo xilligan ku soo wajahan magaalada caasimadda ah Muqdisho qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya dagaal culus oo xalay ka dhex qarxay ciidanka Somaliland iyo kuwa maamulka SSC Qaatumo khasaaro xoog leh oo dagaalkaasi ka dhashay halkee buu dagaalka ka dhacay ma dhaba in khasaaro xoog leh la gaarsiiyay ciidanka militariga Somaliland waxaan kula wadaagi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku aadan gobolka Togdheer iyo sidoo kale gobolka Sanaag halka iska galaan oo dagaal culus xalay uu ku dhaxmaray ciidanka maamulka waqooyi bare iyo ciidanka militariga Somaliland qodobada iyo qodobo kale wixii nagu soo kordha ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe bogan si aad uga mid noqoto saaxiibada halkan joogtada uga helaya wararka warbixinada iyo macluumaadyada mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinayno soo dhawaada daawadayaal haddii aad haddana la soo qabsateen waxaan ka codsanaynaa in aad like saarto sidoo kalena subscribe tiraahdo maadaama aanu ku soconno wadadii aan ku gaari lahayn 150,000 oo qof soo dhawaada daawadayaal waxaan ku bilaabayaa qodobkeena ugu horeeya ee warkeena saaka aan ku daafurayo ciidankii weerari lahaa General Sani Cabdulle iyo Xildhibaan Jacfar ayaa la diyaariyay iyadoo xiisad culusna saaka ay ka taagan tahay degmooyinka Gubadley iyo Dayniile oo labaduba ay ku kala sugan yihiin rag miciyal libaax la soo baxay markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud talada ay ka dhamaatay ama xukunka xil joogistiisa ay soo idlaatay 15 May 2026 oo ilaa iminka aysan jirin wax talaabo ah oo la qaaday muddo 6 bariin ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo filla Soomaaliya ku sugan yahay isaga oo doonaya in mucaaradka Soomaaliya hanjabaad culus uu u diro sidoo kalena dabcan mucaaradka itaalkooda uu tijaabiyay in aysan waxba ka bedeli karin joogitaankiisa filla Soomaaliya laakiin rag ayaa laf dhuunkasha ku noqday taliska nidaamka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dalkan ka arriminaya waxaana qayb ka ah raggaasi xildhibaan Jacfar iyo ninka lagu magacaabo
generaal sani cabdulle waxaana la tilmaamay in labaduba looga yeeray xarunta dalka looga arrimiyo ee filla soomaaliya waa ay ka biyo diideen in ay tagaan filla soomaaliya sidoo kale generaal sani cabdulle iyo rag uu ka mid yahay waxa ay ugu tageen rag ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya degmada gubadley ee gobolka banaadir waxaana noqotay dhammaan arrimahaasi kuwo dhammaantood fashil ku soo idlaaday ama ku biyo shubtay oo ay ka biyo diideen xildhibaan jacfar iyo sani cabdulle in dowladda federaalka soomaaliya dagaalka ay ka joojiyaan sidoo kalena dadkooda ay dhinac ka raacaan qaataanna lacagaha malaayiinta dollar ah ee loo ballan qaaday macluumaadkii ugu dambeeyey ee aanu helayno hadda ayaa tilmaamaya in saaka ciidamo ka amar qaadanaya generaal sani cabdulle in ay xirteen 4 koono ee laga soo galo degmada gubadley ee gobolka banaadir sidoo kale degmada dayniile ciidamo ka amar qaadanaya xildhibaan jacfar ayaa isku meegaaray dhaqdhaqaaqyo culusna waa ay ka wadaan gudaha degmada waxa ayna noqotay degmada keliya ee xilligan aysan ku sugnayn ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya maadaama dowladda soomaaliya xilligan ay doonayso in ay qaado tallaabooyin culus oo ka dhan ah dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ragga mucaaradka ah ee ka soo horjeeda waxaana la tilmaamay in xilligan dhaqdhaqaaqyada culus ee soconaya ay yihiin kuwa markaasi dabcan mucaaradku ay ku doonayaan in guulo siyaasadeed ay uga gaaraan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa gorgor oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan dhowaanna loo qaybiyo hub iyo gaadiid casri ah oo dowladda turkiga ay soo dhiibtay ayaa xilligan la tilmaamay in la duldhigay degmooyinka dayniile iyo sidoo kale degmada gubadley ee gobolka banaadir mar walba dadka darroso arrimaha siyaasadda iyo amniga waxay tilmaameen in uu dagaal magaaladan ka qarxi karo in ay qarka u saaran tahay caasimadda waxaana muuqanaysa xilligan dadaallo kala duwan oo ay bixinayaan xubnaha ee markaasi ka soo horjeeda dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya oo ay ku doonayaan xitaa in ay kula dagaalamaan dowladda haddii laga fursan waayo oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu markaasi talada dalka dhulka soo dhigi waayo hanaan heshiis lagu yahayna dalkan uu doorasho ugu aadi waayo macluumaadkii ugu dambeeyey ee la helayo ayaa tilmaamaya in raggan ka tirsan mucaaradka hoos ay ka wada hadlayaan sidoo kalena qadka taleefonka dabcan ay ku wada hadlayaan madaxweyne shariif xildhibaan jacfar iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo generaal sani cabdulle oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa la tilmaamay in madaxweyne shariif uu ka codsaday in aysan uga kicin madaxweyne xasan sheekh maxamuud tallaabooyinka hadda ay wadaan sidoo kalena aysan noqonin rag la iibsan karo damiirkooda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xilligan markaasi isaga qudhiisa muujinaya dadaalkii ugu xooganaa madaxweyne shariif waxa uu doonayaa in dowladda federaalka soomaaliya filla soomaaliya lasoo afjaro isla markaasina gacanta lagu dhigo magaalada caasimadda ah muqdisho qaybaha ugu muhiimsan isaga iyo mucaaradka qaarkoodna waxa ay ku hanjabeen in 1991kii dib loogu laaban doono haddii talada dalka uu dhulka soo dhigi waayo madaxweynaha iminka talada dalka haya xasan sheekh maxamuud kaasi oo doonaya in uu markaasi dabcan xilligan muddaxileedka sii dheeraysto 2027 bisha Mayna uu tilmaamay in muddaxileedkiisa uu ku egyahay arintaasi oo muujinaysa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilligan xididada iyo baroosimaha uu dhigtay filla Soomaaliya cid ka saari kartana marka uusan aaminsanayn in ay ku jirto xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xogaha leelay waxay tilmaamayaan in degmada gubadley markii horeba ay ku sugnaayeen ciidamo aad u fara badan oo si toos ah uga amar qaadanaya generaal sani cabdulle ciidamada kale ee soo galay degmada dayniilena waxa ay noqdeen kuwa xad dhaaf ah xilliganna waxaa la tilmaamay in dayniile markan cabsi xoogan laga qabo in ay qof iyo qori noqoto arrintaasi oo muujinaysa in xilligan dadka ku dhaqan degmada dayniile ay doonayaan in ay si cad uga hor yimaadaan nidaamka taliska iminka talada haya ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kalena ee dhaqdhaqaaqyada culus ka wada magaalada caasimadda ah ee muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka dowladdii uu hogaaminayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud saraakiisha ciidanka cid walba waxay u malaysaa in xilligan magaalada muqdisho ay tahay guud ahaanba dalkii oo dhan
oo la soo koobay oo markaasi dabcan dadka oo darasa arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay tilmaameen in caasimaddu ay tahay mid markaasi aanan u baahnayn xilligan in ay ku hardamaan awoodo iska soo horjeeda oo loola jeedo xubnaha mucaaradka ah iyo sidoo kale xubnaha ee markaasi dowladda dhexe federaalka Soomaaliya macluumaadkii ugu dambeeyay ee hadda aanu helayno iyo dhaqdhaqaaqyada culus ee soconaya ayaa la tilmaamay in ay yihiin kuwa markaasi lagu barataarayo xaaladda guud ee dhinaca markaasi dadaalada ku aadan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud firlada looga saaro madaxweyne shariif iyo sidoo kale general sani cabdulle iyo ragga la midka ah ayaa la tilmaamay in xilligan hanjabaad culus ay hawada marsiinayaan general sani cabdulle waxa uu wacad ku maray haddii la soo weeraro degmada gubadley in uu isdifaaci doono cid kasta oo soo weerartana tallaabadii ugu cuslayd uu ka qaadi doono xildhibaan jacfar sidoo kale waxa uu ka mid yahay ragga aadka u caraysan ee u ciil cunay madaxweyne xasan sheekh maxamuud isla markaana la tilmaamay in xitaa dabcan la soo wariyey in uu xilligan abaabulayo dagaal xoogan oo markaasi lala geli karo tariska madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee iminka markaasi wasiirkii gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya uu u hanjabayo xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda dhexe federaalka Soomaaliya macluumaadka iyo wararka xaqiiqooyinka ku salaysan ee hadda aanu helayno ayaa tilmaamaya in ay xilligan soconayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa ciidanka gorgor ee heeganka la geliyey ayaa wata gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan iyagoo lagu arkayo duleedka magaalada caasimadda ah Muqdisho ciidankan qayb kamid ah waxaa la dhigay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir afaafka hore ee laga galo degmada Gubadley sidoo kale ciidanka ee qaybta kale waxaa la dhigay agagaarka kuliyadii Jaalasiyaad iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga xarunta ay ku shaqeyso gaar ahaan warshada caanaha halka la yiraahdo agagaarkeeda halkaasi oo saaka lagu arkayo dhaqdhaqaaqyo xoogan ciidamo ka tirsan kuwa gorgor oo markaasi fulinaya watana qoryo iyo hub casri ah oo xilligan markaa la tilmaamay in dowladda Turkiga ay ku wareejisay dowladda federaalka Soomaaliya wixii ku soo kordho oo wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii Allah ugu dalo waraali ka noqdo qaybaha kale ee wararkeena ayaan markana sii eegaynaa horjoogayaal caan ka dhax ah kooxda shabaab ayaa la tilmaamay in ay gacanta ku dhigeen ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka kadib dagaallo culus oo saacadii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe maleeshiyaadka kooxda shabaab maalmihii ugu dambeeyay cashiro xoogan waxa u dhigayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii taliska ciidanka xoogga uu bixiyay amar culus oo lagu ambaqaadayo howlgalladii ka dhanka ah kooxda shabaab dagaallo culus ayaa ka dhacay xalay duleedka deegaanka lagu magacaabo wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe kadib markii ciidanku ay ka war heleen maleeshiyaad ka tirsan kooxda shabaab oo halkaasi ku soo dhawaaday isla markaana weerar culus oo cir iyo dhul ah ciidanka xoogga dalka ay ku qaadeen ragga la tilmaamay in ay dagaalkaasi ku geeriyoodeen la xaqiijiyay waxaa la tilmaamay in ay qayb ka yihiin rag caan ka dhax ah maleeshiyaadka kooxda shabaab rag uu ka mid yahay kaba ku tukaday ayaa la tilmaamay in dhaawacyo culus ay ka soo gaareen dagaalkii dabcan iyo duqeymihii cuslaa ee halkaasi ka dhacay sidoo kale wararka qaar oo aan la xaqiijin ayaa tilmaamaya in afhayeenkii maleeshiyaadka kooxda shabaab oo qayb ka yahay ragga lagu duqeeyay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaasina uu dhaawac culus uu ka soo gaaray inkastoo aan la xaqiijin laakiin saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya sidaasi ay ku xog warameen macluumaadkii ugu dambeeyay ee la helayo ayaa tilmaamaya in rag badan oo maleeshiyaadka caan ka dhax ahaa sidoo kalena magacyo kala duwan looga yaqaanay kooxda dhexdeeda inay gacanta ku soo dhigeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhawaana la filayo in ay ka soo muuqdaan maxkamadda ciidamada darajada koowaad ee qalabka sida ee uu hogaaminayo Xasan Cali Nuur Shuute xogaha iyo macluumaadka aanu helayno ayaa tilmaamaya in saacadii la soo dhaafay ay dhaceen dagaallo culus oo cir iyo dhul ah oo lagu qaaday kooxda shabaab deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu duqeeyay kooxda waxaana la tilmaamay in ciidanka xoogga ay weerareen ee ku sugan wargaadhi ciidamo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda oo la tilmaamay in ay ku soo dhawaadeen deegaanadaasi wargaadhi iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxay ka mid yihiin deegaanada istiraatiijiga ah ee xilligan ay gacanta ku hayaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo deegaanadaasi ay qayb ka yihiin goobaha laga jiheeyo weerarada ka dhanka ah kooxda ee xilligan la doonayo in lagu soo afjaro maleeshiyaadka haraadigooda goobaha ay kaga sugan yihiin deegaanada iyo degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe wararkii ugu dambeeyay ee la helayo ayaa tilmaamaya in ciidanku sidoo kale dhaqdhaqaaqyo culus ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan inta u dhaxaysa deegaanada Aadan Yabaal
daarunimca iyo sidoo kale masaajid cali gaduud iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo markaasi ay ku xoogan yihiin sida la aaminsan yahay maleeshiyaadka kooxda shabaab muddo ku dhow 1 sano ayay gacanta ku hayaan aadan yabaal iyo masaajid cali gaduud oo ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay iskaga soo baxeen kadib dagaalo culus oo halkaasi ka dhacay iyadoo ilaa iyo iminkana aysan jirin in mar kale dib loo ambaqaado howlgalladii ka dhanka kooxda waxaana taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu tilmaamay in mar kale xilligan howlgalladu ay noqonayaan kuwa markaasi soo laba kacleeyay sidoo kalena la doonayo in markaasi weerarkii ugu cuslaa lagu qaado maleeshiyaadka kooxda shabaab ee xilligan doonaya in ay markaasi dabcan dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee halkaasi ku dhaqan kooxdu markii aadan yabaal iyo masaajid cali gaduud ay gacanta ku dhigeen waxay ahaayeen kuwa markaasi gowrac iyo dil foolxun u geystay dad shacab ah oo halkaasi ku sugnaa oo haween xitaa ay qayb ka ahaayeen iyadoo kooxda meelo badan oo markaasi ay tageen dadkii ku dhaqnaa si arxan darro ah ay ula dhaqmeen odayaal dhaqan iyo rag dhalinyaro ah ayaa la tilmaamay in weli gacanta kooxda shabaab ay ku jiraan kadib markii ay ka afduubteen deegaanadii ay gacanta ku dhigeen haddaba wixii ku soo kordho wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii allah ugu dilo uu raalli ka noqdo markana ciidamo hubaysan oo ku hayb ah xildhibaan Sambaloolshe ayaa ka soo baxay furmaha dagaalka iyadoo Sambaloolshana u bilaabay abaabul dagaal oo ka dhan ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ciidamo ka soo jeeda beesha xawaadle oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka nuucyadiisa kala duwan ayaa lagu soo waramayaa in ay ka soo baxeen gobolka Hiiraan fariisimihii ay ku lahaayeen iyaga oo markaasi la tilmaamay in ay qayb ka yihiin xubnaha ku soo wajahan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ragga mucaaradka ah waa ay kulmeen waa la wada hadlay waxaana qof walba oo hawiye ah oo ka tirsan siyaasiyiinta beesha la tilmaamay in xilligan lagu ballamay in ay ciidamo qof walba diyaariyaan si duulaan culus loogu qaado dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud xildhibaan Sambaloolshe waxa uu ka mid yahay raggii soo maamulay taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu qayb ka yahay raggii furmaha dagaalka xilligii maleeshiyaadka kooxda shabaab laga xoreynayay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee markaasi kaalin weyn ka qaadanayay waxaana xilligan muuqanaysa in ciidankii ugu badnaa oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa beesha xawaadle in xilligan ay markaasi bilaabeen dhaqdhaqaaqyo xoogan oo dhinaca ciidanka ah oo ay kaga hortagayaan tallaabooyinka ay qaadi karto dowladda federaalka Soomaaliya ciidankan waxaa la doonayaa iyaga iyo hubkooda iyo gaadiidkooda dagaalka in ay gudaha usoo galaan magaalada Muqdisho waxaana la tilmaamay in muddooyinkii ugu dambeeyay abaabulkii xooganaa ee u waday Sambaloolshe ay qayb ka tahay ciidamada ka soo baxay furmaha dagaalka ee la tilmaamay in ay qaybta ka noqonayaan howlgalka mucaaradku xilligan ay wadaan ee la doonayo in lagala hortago dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee xilligan majaraha dhigatay filla Soomaaliya sidoo kalena tilmaamtay in 27 xubnaha mucaaradka ah ay u ballan tahay marka la gaaro 15 May 2027 arintaasi oo si weyn ay uga caroodeen xubno badan oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya macluumaadka hadda aanu helayno ayaa tilmaamaya in beelaha xawaadle murusade abgaal iyo sidoo kale habargidir intaba ay doonayaan in ay iskaashi ballaaran ka galaan sidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud markaasi dabcan looga saari lahaa filla Soomaaliya waxa uu ka mid yahay xildhibaan Sambaloolshe siyaasiyiinta xilligan mucaaradka weyn ku ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoona la og yahay in markii hore uu qayb ka ahaa raggii soo dhisay Sambaloolshe ama raggii soo dhisay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qayb ka ah xildhibaan Sambaloolshe oo mar laga dhigay taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed inkastoo markii dambe xilka xayuubin ay ku sameysay dowladda uuna dib ugu laabtay kursigiisii oo markii horeba banaanaa haddaba dhaqdhaqaaqyada culus ee xilligan soconaya ayaa la tilmaamay in xilligan markaasi xubnaha mucaaradku ay u kala baxayaan beelbeel sidoo kalena ay doonayaan beel walba in ay qayb ka qaadato duulaanka la doonayo in lagaga hortago madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kalena talada dalka looga farmaroojiyo wixii ku soo kordha oo wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan ugu dambeyntiina dagaal culus ayaa xalay ka dhex qarxay ciidanka Somaliland iyo kuwa SSC Qaatumo iyadoo khasaaro xoog leh uu ka dhashay dagaalkaasi oo ka dhacay gobolka Togdheer iyo sidoo kale gobolka Sanaag inta u dhaxaysa deegaan lagu magacaabo Shanta Geed ayaa la tilmaamay in uu ka dhacay dagaalkan oo geystay khasaaro isku jira dhimasho dhaawac ciidanka
maamulka waqooyi bari oo aad u hubaysan iyo ciidanka ee markaasi militariga Somaliland ayaa isku fara saaray goobta dagaalka uu ka dhacay waxaana la tilmaamay in dagaalkii xalay dhacay uu ahaa mid rogaal celis ah oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ciidamada militariga Somaliland ayaa weerar culus waxa ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka waqooyi bari oo ku sugnaa deegaankan waxaana deegaankan u noqday deegaan dhowrkii bilood ee la soo dhaafay marka ay ku wada dagaalamayeen ciidamada maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale ciidanka militariga Somaliland xogaha iyo macluumaadka la helayo ayaa xaqiijinaya in dhaqdhaqaaqyo culus ay ka soconayaan deegaankii dagaalka uu ka dhacay khasaare xoog leh ayaa la tilmaamay in uu ka dhashay dagaalkaasi oo ciidanka Somaliland soo gaaray inkastoo aan la xaqiijin ciidamada maamulka waqooyi bari dagaalka khasaaraha ka soo gaaray laakiin wararka aanu helayna waxa ay tilmaamayaan in tobaneeye ka mid ah ciidanka militariga Somaliland in goobta lagu dilay iyadoo dhaawacana intaasi uu ka badan yahay dhinacyadana waxa la tilmaamay in khasaare xoog leh uu soo kala gaaray inkastoo aan la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaasi ka dhashay ciidanka militariga Somaliland iyo ciidanka maamulka waqooyi bari ayaa inta badan ku wada dagaalama deegaanada iyo degmooyinka maamulka ee waqooyi bari ee xilligan ay gacanta ku hayaan ciidanka militariga Somaliland waxaana xilligan muuqanaysa in ciidanka maamulka waqooyi bari xilligan ay gacanta ku dhigeen deegaankii lagu dagaalamay iyadoo halkaasi laga saaray ciidankii militariga Somaliland ee markaasi weerarka culus ku soo qaaday xogta saaka la helaya waxa ay tilmaamayaan in wali dhaqdhaqaaqyo culus oo dhinaca militariga ah ay ka taagan yihiin deegaanka sidoo kalena xiisadu ay mar kale macquul noqon karto in ay dib uga qaraxdo deegaanka lagu magacaabo Shanta Geed halkaasi oo dhaqdhaqaaqyo culus xilligan ay ka wadaan ciidamada maamulka waqooyi bari iyo sidoo kale ciidanka militariga maamulka Somaliland deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sanaag iyo sidoo kale gobolka Sool ayaa xilligan waxa isku hayay ciidanka militariga Somaliland iyo ciidanka maamulka waqooyi bari waxaana xilligan muuqanaysa in mar kale dagaaladii u dhaxeeyay ciidanka Somaliland iyo kuwa waqooyi bari inay mar kale soo cusboonaanayaan iyadoo waqooyi barina wali ay damaacinayso inay gacanta ku dhigto magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag wixii ku soo kordho wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe dhibuggan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada halkan uga helaya wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinayno waa maasantiin daawadayaal soo dhawaada waxaan idin leenahay arooriyo suuban